god madow adugu ha gelinin shilimaadka lacagtiyo waxaanu sharad goynayn sharaftaada weeye ha ku shakaalin booraan bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa ismaaciil muuseel kadiga daawanaysan bartaan ku leeyahay mareegta youtube ismaaciil said fadlan haddaad ku cusub tahay channelka ku soo dhawow subscribe-tana u furo gambaleelkana saar videogana like saar maanta waxaynu ka hadli doonaa ama isir dul taagi doonaa arrin aad ugu faaftay balaha bulshada dhexdooda oo ugubna ku ah ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba bulshada islaamka ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan arrin ku ugub ah oo dhexdooda aad ugu faafay ayaynu doonaynaa inaan bal wax ka yaran idhaahno maanta oo in muddo aba aan indhaha ka eegayeen dhegta ka maqlayeen arkayay markaan arkay inuu sii tarayano ay ila noqotay inaanan sii aamusnaanin arrinkaas oo ah waxa loo yaqaano sharaf iska xayuubin qofka isagoo oo kaskiisa iyo maankiisa iyo miirkiisiiba qabo oo aan waaleyn inuu sharaftiisa iska xayuubiyo oo sida masku uga dhex baxo xuubka isagoo sharaftii iyo karaamadu uu lahaa iyo maamuuska dadka dhexdiisa ku lahaa uga dhex baxo arrinkaas oo baryahan dambe aad ugu faafay baraha bulshada khaasatan meelaha la iskugu yimaado baraha bulshada loo yaqaan social media arrinkaasaynu iyar ka oran doonaa sharafay marka hore maxaa tahay adigu sharafay maxaa tahay sharaftu waa wuxuu qofku ku nool yahay dadka dhexdiisa ku joogo haday sharaftu ka dhimato sharafta iyo karaamada iyo dignity-ga Ilaahay uu ku siiyay dadka ku dhex joogtay haday ka dhimato ama sida masku xuubka uga dhex baxdo si noolaan karmaysid hadaad sii noolaatano adigoo qofkii ku maqla iyo kii ku arka iyo kii raadkaaga xitaa meelun ku arka uu kaasaso uu sakada kale ka sii wareego ayaad noolaanaysaa bulshada ku dhex noolaanaysaa arrinka caynkaas ee halka ka jooga bulshada ee meeqaamka leh dad ayaa maanta ay sharaf iyo karaamo u tahay oo ku faana oo la soo taagan baraha bulshada dhexdooda iyagoo noocaas walaalkayga iyo walaashayda imaqlaay ee daawanay ee afkaranay Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaal sharafta lacag ma goyso sharafta la isku hibeeyo karaamada iyo ixtiraamka dadku ku hayaan haduu ka jabo ama uu inuu ka baydo dubku ugu soo noqon maayo geed qolof ka dhacday baad noqonaysaa wuxuu diinteena wanaagsan ina faraysa ay noo sheegaysaa qof muslima inaan cirdigiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa aan midna wax laga sheegin midna aan la durin midna aan la xagxaganin taasoo cod dheer iyo dhawaaq dheerba uu nooga digay Ilaahay bal ka waran qofka isagu iska siiba sharaftii halka joogtay ee la yiri qof muslima ha xagxaganina sharaftiisa iyo cirdigiisa waxa yeelina haddaad adigii intaad soo cararto sida dharka aad iskaga dhigto aad sharaftaada iyo kamaamka aad lahayd uga dhex baxdo balaayo kugu habsata oo ka weyn ma jirto hoog iyo ba iyo bayhoof ka xumi ma jiro haddii xubnahaaga jirka mid kamida aad weydo si uun baa loo kafeyn haddii ili kaa soo boodo mid macmal ku lagu geliyona wuxuun baa lagu xallin haddii beerkiyo keliyuhu ku fadhiistana shaqayn waayaan wuxuun baa lagu beeri sharafta aad leedahay iyo karaamada iyo maamuuska iyo sumcaddu haddii ka dhimato marnaba heli maysid maalintaas kuugu dambaysa maalinta aad ka dhex baxday sida xuubka ayaa kuugu dambaysa adduunka intaad sii nooshahay aad sii joogto ayaamaha yar ee kooban hadduu Ilaahay ku daayo nafta adiga oo qolfoof marana ayaad dhex soconaysaa dadka adiga oo kii kula dhashay iyo kii ku dhalay iyo kii ku dhaxday iyo kaad u dhixi doonto intuba marka la maqlo iyaga laftooda adigaba iska dhaaf iyaga marka la maqlo la saso oo shan geel daaq laga sii wareego oo keenana kala duwan laga guuro agtaada ayaad sii noolaan doontaa walaalkayga iyo walaashayda imaqlayay dhageysanaya sharaftu waa wax lagu shoobo wax lagu faan lagu xaragoodo weeyaan sharaftu waa xarago inta sharaftaada karaamadaada maamuuska samcada dadku ku hayaan adigu naftaada u haysa ay ku joogto qof waxa tahay xaraga talaabsanaya maalinta ka baxdano waxa tahay qof dhamaaday oo dhintay dadka ka agdhow arrinka aan sheegaya ku suntan iyo kuwa rajeynaya iyo kuwa ku dhaqmaya si higsanaya inta waxaan leeyahay walaal maanta fursad haysataa maanta ilaashan kartaa sharaftaada iyo karaamadaada iyo dignity-ga Ilaahay ku siiyay haddii ka siibato maanta dub looma soo qaban karaayo meel kasta oo aad martad ka wareegtano fartun baa lagu fiiqi doonaa adigoo wuxuu yahay aan jirin ayaad noolaan doontaa wayna aragnaa oo ma aha wax khiyaaliya wax mala awaala waxaan iska sameysanayaa lagu maaha baleheena bulshada waxa ka socda wada aragtaa
meelo khaasa weliba khaasatan applicationno khaasa wax ka socda rag iyo dumarba waynu arkaynaa sharaftu iyadoo ay tahay wax lagu xaragoodo wax wanaagsan wax qurux badan cirdigu isagoo aad u wanaagsan yahay ayuu haddana sii kala yahay oo rag iyo dumar marka ay tahay uu dumarka ku sii wanaagsan yahay iyadoo wax la kala qalo aanu ahayn oo la kala fadilo ayuu haddana sii kala wanaagsan yahay oo dumarka ku sii wanaagsan yahay haddaad maanta iska siibto oo sida xuubka uga dhex baxdo aad ka meedhaq siibato xaggaad ku noolaan adduunyada inta ilaahay kuu daaya cimriga adoo caynkeeg baad noolaan yaad nasab u sheegan yaad xidid u sheegan yaad cirdi ku abtirsan yaa wax kugu falay yaa ku soo dhawaysanaya yaad ahaanaysaa maxaad u dooranaysaa dulinimada caynkaas maxaad u dooranaysaa nolosha caynkaas adigoo sharaf ku noolaan karo halka ugu sarreysay cisi iyo wanaag iyo ixtiraam ku noolaan kara maxaa dulinimada kuu celinaya maxaa in lagu xaqiro kuu celinaya dubis kugu noqo dubis kugu fakir qol hoosta ka soo xidho keligaa meel cidla aad tag waxaan kusoo gebagabeynayaa anigan sii dheeraynhaynin 4 beydoo kooban oo ina tusaaya sharaftu waxa ay tahay sharaftu dukaan ma taalo dignitiga ka soo helmaysid suuqa ixtiraamkaaga iyo cirdigaaga hadduu dhammaado lacaga kuu geyn mayso qof intuu kuu keeno uu soo qaado kuu hibeyn maayo ku odhan maayo waa tani hoo hadday tii hore kaa dhammaatay anaa mid cusub oo marka jidiida kuu keenayo nuyue tan qaado tii hore hadday kaa dhammaatay waxaan leeyahay walaal shilimaadka lacagtiyo waxaanu sharad goynayn sharad waxaanu goynayn sharaftaada weeye ha ku shakaalin booraan god madow adugu ha gelinin shilimaadka lacagtiyo waxaanu sharad goynayn sharaftaada weeye ha ku shakaalin booraan